wiil la yiraahdo wisbi horta Soomaalidu waxa u sheegaya markii ay noqoto ishaynta social media dhexdeeda erayo aan la jeclaysaneyn iqaab muuqaal ku ninkan iga xanaajiyay oo ninkii jafay aaba soo arkay show wiilkii iyo gabadha waa ishayn anu ma ogi okay sheeko ka horeysa jirta inta waxa ka dambeeyay inuu isaga soo wacay codkiisana waa ii duuban yahay wali social media ma soo dhigin waxaan arkay marka hadda rag isaga ka soo horeeya intii wanaagsan kula soo dhawaada waraysi aanu la yeelana King CK oo ah YouTuber caan ah marxaantaana fanaan ah waayahan dambana heesihiisa dadku ay aad iyo aad u falanqeynayeen iyo waliba reactionada uu bixiyo waxaanu wax ka weydiin doonaa sida uu ku soo gaaray maanta meesha uu marayo caanimadan inay kulushahay ee faragacan adag lagu hayo iyo waxyaalaha uu kala kulmo waxaanu kala eegi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo muusiga goortu ku soo biiray waxyaalihii ku kalifay iyo waxyaalihii kala kulmay YouTube-ka intuu ku jiray waxaanu kala wax ka weydiin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo alaabtii iyo cuntooyinkii iyo maxaa la lahaa raashinkii quruxda badnaa Ramadaantii ku afurayay maxaa soo gabagabeeyay asaga ayaa nooga dhici doona goordhow dhammaan King CK iyo familigiisa oo dhanba waa soo dhaweynaynaa iyo taageerayaashiisu meel kastoo ay joogaan iyo waliba mucaaradkiisaba waanu soo dhaweynaynaa caawa waxaanu barnaamijkan ku qaada dhigaynaa arrimahaas iyo arrimo fara badan iyo meesha uu jecel yahay inuu gaaro YouTube ka gaaro iyo cidda uu tartanka kula jiro waaba haddii ay jirtee waxyaalahaas ayaanu wax ka weydiin doonaa qaybta dambe oo wejiga labaad oo waraysigaana waxaanu King CK wax ka weydiin doonaa asaga iyo Maxamed Amiin Wisbi wiilka asaga laftigiisu raabka marka uu istaago ummaddu ay saa isku wada ruxayso ayaanu wax ka weydiinaa waxa ka dhaxeeya iyo dad kale oo fara badan oo isqabqabteen iyo dhowr jeer uu sheegay in laftigiisu inay cimaamadu ka dhacday iyo waxyaalahu kala kulmay King CK sharaf iyo karaamo ay tahay saaxiibana hor fadhidid soo dhawow brother waa dhawaay walaalkay Cabdixaafid waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waraysigaaga oo ah waraysi inta badan dadku ay wada sugaan in maanta amarti ku ahay aad iyo aad ugu faraxsanahay waan ku salaamayaa adiga ummadda Soomaaliyeed saaxiib Allah karaamay sharaf ay noo tahay inaad nala fariisatid adiga naga dad badan oo naga famousan oo ummaddu ay aad ku sugtaa reaction-kaaga iyo barnaamijyadaada iyo heesahaaga niyow bal dib aan kuu yara celiyo marka hore King CK waa kuma King CK magacayga saddexan waxa weeye Cumar Maxamed Maxamuud waxaan ku dhashay caasimadda dalka Soomaaliya Muqdisho ayaan ku dhashay Sinai waxaan ku soo barbaaray xaafad la yiraahdo Cali Shire xaafad la yiraahdo ayaan ku soo barbaaray oo waqtigii inta badan ku soo qaatay kadibna waxaan soo degay xaafad la yiraahdo Madiino oo iyadana waqti aan ku soo qaatay dugsigayga hoose dhexe sare waxaan ku dhameeyay isla Muqdisho kadibna 2014 ayaan waxaan imaaday Yurub kadib hamigaygu inta badan wuxuu ahaa waxaan yaraanteeda jeclaa oo ahayd in dadka aan ka qosliyo riwaayada aan sameeyo sheekooyin aan sameeyo ilaa waqtigayga iskuulka anigoo 13 jirna waxaan xasuustaa 12 jir meelaha sanad kasta iskoolka markii la xirayay sanad dugsiyeedka inaan ka mid ahaa riwaayadaha meesha lagu soo bandhigi jiray marka riyadeedii qosolka iyo madadaalada ahayd ayaan bilaabay markaan imaaday qurbaha Facebook ayaan waxaan soo gelin jiray fiidiyoyo gaaban oo gabi ahaanba riwaayadaha markaas marxaladda taagan ee qurbaha dhexdeeda oo Soomaalida dhexdeeda ayaan riwaayado ka sameyn jiray kadibna waxa ii suurta gashay inaan YouTuber noqdo YouTube ku soo wareego waa gartay oo kaaga mahadcelinaa sida usoo koobtay hadda waxaad ka mid tahay dadka ugu caansan social media meel aan laga daawan maqshib iyo maqrib ma jirto fanka iyo suugaanta ayaad qayb ka tahay oo rapper baa tahay musician ah sidoo asagoo musiciannimadaas kuugu soo bilaabatay markii hore horta dhinaca muusiga markaan u weecanayay ulajeedkaygu ma ahayn inaan fanaan noqdo ama hami fan ah amaba
in adiga dhinacaas fanaannimaba u leexdo ulajeedkeeda ma ahayn waxaan xasuustaa markii ugu horeysay aan dhahayay show baan qabsanayaa anigoo fanaan ba ahaanba anigoo youtuber ayaa waxaan iri waxaan qabsanayaa show waxaana tegi doonaa Nairobi Kenya markaan lahaa show aan qabsanayaa hees ma lahayn fanaanna maan ahayn heesna maan soo qaadin waxaan kala gol lahaa Soomaaliya ya showgu muxuu ku saabsanaa markaas show ku saabsanaa show waxaan tusayay Soomaalida wax ugub ku ah aan dhexdooda hore uga dhicin inuu fanaan show qabsado wala arki jiray in youtuber magaca youtuber oo Soomaalida markaas sanadii dambe ku cusbaa in uu show qabsan karo in aan sameeyo sida caalamka youtuberada maaragtay internationalka ay sameeyaan inuu showyo qabsadaan dadka taageera magaalooyinka degan yihiin wadamada ay degan yihiin inay tagaan ee waqti la soo qaataan kadibna waxay sameeyaan marka heeso ayay sameystaan ilaan markii showga aad qabsatid maxaa lagu boodboodaa reaction ma lagu boodboodaa dhalinyarada markay imaato marka waxay sameystaan music u gaara nin kastoo oo youtuber wuxuu leeyahay heeso u gaara kuwa distract ee dad isku qabsadaan isku jawaabaan oo business laga sameeyo dhinaca kalena heeso iska baashaal ayuu sameystaa ugu talagalo markuu show qabsado wadan tago inuu taageerihiisa la qaato aniga marka mowqifkayga ahaa anoo af Soomaali ku hadlaaya inaan 1 milyan gaaro janaalkayga inuu u shaqeeyo ama magacayga youtubernimo sida youtuberada caalamka ee u shaqeeyaan oo kale ayadoon ku daysi iga ahayn in magaca youtuberday uusan ku ekaanin inaan kursiga soo fadhiyo aan sameeyo inaan showyo qaban karo aan sameeyo inaan anigoo youtuber filmaan sameyn karo skydiving waxa la xitaa sameeyay adi in aan u shaqeeyo as international youtuber anoo af Soomaali ku hadlaayo aan af kale ku hadlaynin taasaa kaliftay inaan showyo qabsado inaan music sameeyo heesteeda ugu horeysay waxaa xasuustaa anigoo weligeyba meel music oo maaragtay lagu sameynayo aan fariisan weligeyna fan wax la yiraahdo aan ku riyoonin inaan galo ama aan daba taagnaado waxaan go'aan markaan ku gaaray inaan show qabsado inaan heeso sameeyo ee ii soo baxday ayaan waxaan la xiriiray Xamse Xadaari in la yiraahdo aan saaxiibanahay oo abwaan ummadda wada taqaano kadibna beat baan u diray afar beat oo xasuustaa waxaan dhahnay oo beatkaan ka helay waxaan jeclaan lahaa in hees aan sameeyo waayahay buu yiri hees wuxuu isoo sameeyay la yiraahdo qalbiga taladiisa oo soo laxmeeyay ninka la yiraahdo Qamar Suugaani ayaa soo laxmeeyay halkan aan ka salaamayo fanaan oo aad iyo aad maaragtay aan heesiisa ugu raaxaysto markaa reaction ka bixinayo ninka ayaa soo laxmeeyay heesta qalbiga taladiisa ayaa la dhahayay waan baxay Nairobi baan tagay waxaan isqabanay walaalkay Leel Baliil oo aan isbaranay oo run ahaantii isheeg maxaa la yiraahdaa isagana markaa rajo lahaa iyo mowqif oo ahayd Somali music to the world anigana waxay teeyay ahayd Somali youtuber to the world waa isqabanay waa xasuustaa waa wada fariisanay hotel baa isugu imaanay waa sheekaysanay habeenkii ugu horeysay waxaan ka sheekaysanay waxay ahayd mowqifkiisa Somali music to the world iyo keeygi Somali youtuber to the world in ay hal wado ku socoto kadib wuxuu ugu hambaliyay qaabkan wax u wado in aan ku taamay anoo fanaan ahayn inaan show qabsado oo dadka dhan la yaab ahayd xitaa dadkii ugu dhawaa ayaa igu yiri ma laga yaabaa anigoo arrintan inaad ku fashilantid annaga adigoo maaragtay kuraas cilaa hortaagan ma arki karnee youtube-kani waa ujeednaa inaad taageero ka leedahay ma ogaadist xitaa dadkii igu dhawaa oo iga dhaxayay ayaa arrintaa iga hor istaagay waa ku madax adeegay Nairobi baan tegey dad baan soo dhaweeyey Leel Baliil ayaa waqti isla qaadanay kadib aniga isaga isku sheeko maadaama noqonay ayuu wuxuu yiri heestaa rabtid inaad sameysid dhegeysiye laxankeeda waan dhegeysiyey qalbiga taladiisa inta hore kadib wuxuu yiri brother way fiican tahay stuudiyaha balan oo iga qabtay isla habeenkii berita markaa soo kacdo stuudiyaha ku geena aroortii baan israacnay stuudiyahan tagnay waxaan u soconay hees qalbiga taladiisa la dhaho inaan sameysto stuudiyaha markaa tagnay oo heestii aan bilaabay inta ugu horeysay inaan record gareeyo horiskana aan ku daray ayuu Leel Baliil wuxuu yiri brother adiga magacaa gaday la yiraahdo falaq وهذا عد كستا استعماشه وهذا noqday maadaama magacaas hadalheyntiisa aad u fara badan tuu yiri ka waran heesta dhanba hadii aan ka dhigno hees ciyaalka xaafada oo baashaal ah qalbiga taladiisa magacan ayga cuntid ixtiraamna waa siinayna dadku soo sameeyay heestana maadaama magac ku gadan yahay magacaaga heesta ka dhigno waa fikrad fiican waaya anigana waa soo galayaa bartibu isagana intiisa ku qortay sidii baan hees ku sameynay heestaasuna waxay ahayd music afro wax sameeyo dadka ugu horeeyay qaab muuqaal ahaan iyo hees ahaanba oo ka bedelan heesii hore wada sameeyay aniga asaga inaan noqono
dubowa heesta waxay noqotay hees maaragtay dhalinyarada aad iyo aad usoo jiidatay ka helaan oo meel kasta ay ka daaraan intaa wixii ka dambeeyey showgii baa ii qabsoomay marka dadku inta badan waxay u arkayeen in dhanka fankana aan loo gasto aan rabo inaan fanaan noqdo heese kaloo iyagana isla sameynay lil balil ayaa jiray oo Nairobi mar kale kusoo noqdo iyagana caan baxay oo showyo fara badan aan ku qabtay waxaa suurto gashay anigoo raba in Kenya aan ku noqdo oo heesad badan aan soo samaysto lil balilna aan u sheegan ku iri markaan ka soo laabto waxaan rabaa tourki Nairobi aan ku bilaabay in halkiisa ku sii socdo Yurub gudaheedana aan showyo ku qabsado waayuu dhahay annagoo rabna inaan heese kale isla sii sameeyno ayaa program isaga markii hore u socday u soo baxay waxay noqotayba in meeshan kili ku soo noqon lahaa aan aniga isaga soo wada noqono oo Yurub ku soo wada noqono taa markay dhacday saaxiibtinimadeena way sii fogaatay inta in ka badan Berlin baa la joogay maxaa la yiraahdaa kadib waxaan sameynay isagana in uu yiri waxaan qabanayaa howlaha u imaaday markii laga soo tago tour baan qabanayaa wax fiican waayaan oo markii hore baan boo kula taliyay tourkii ayaan la bilaabay waxaan tagnay Sweden oo run ahaantii aad iyo aad u soo kala kicinay Finland sidoo kale taa markii ay dhacday ayaa marka waxaan u sheegay intuu uu sii soconayay kiisa in anigana aan rabo inaan Malaysia tago oo aan ku soo qabto anigana show aan ku soo qabto maadaama tourkii anigana ii socday ay rajadeedii ereyadeedii barteeda inaan ka sii wado waayuu ugu dhahay isagoo holiisa sii watay markii Malaysia ay show ku qabanay asna Frankfurt ku qabanay Jarmalka inta markii dhacday ayaa dadku iska taqaanaa waxay dhaheynayeen labadaan oo isku dhaceen lacag isku qabsadeen adduun adiga waxaa la soo geliyay suuqa qof kasta soo u fikiraya markaas maadaama ay dhacday in Malaysia inaan show ku qabto balilna Jarmalka uu show ku qabanay Frankfurt kadib dadku waxay u fikireen showyadii lacagihii ba isku qabsadeen CK baa kan dhacay kan baa maxay ku dhacay inta wixii ka dambeeyay markii dambe way fahmeen in ay meesha dhibaato kala jirin balilna aniga aan wax ugu qabin asna uu ii qabin aan barti ka sii wada shaqeynayna is arkaynay inta wixii ka dambeeyay waxaa dhacday in barteeda aan ka sii wado oo Turkiga show aan ku qabto Greek meel la yiraahdo aan tagay aan show ku qabto kadibna wadankii aan aado aan show ku qabto Muqdisho aan ku qabto Kismaayo aan ku qabto Beedhabo waxyaabaha marka igu darsamay ee dhanka fanka aan ka bartay waxay noqotay runta haddaan kuu sheegana aniga aan xoog isku baray cidna ayan ii tilmaamin maadaama anigu wuxuu aan kaga gol lahaa inta dhalinyarada ku taageerta Somali YouTubers to the world musican ina ugu sameeyo waxa aniga qortayna aan sameesto at least ina kaaji ah la qaban karo oo leela qaadi karday maanta aniga hadda aan soo qabto ama stage-daas aad tago hees waxaa jirto oo la yiraahdo digdig loo kale mayga hadda qabsado dhalinyarada kulli way la wada qaadi karaan marka muhiimadeedu taas ahayd waxaan bilaabay inaan aniga wax karsado heestu ugu horeen kariyo waxaa la yiraahdaa shuturu oo TikTok ka hit gareysay 4 million ayay waxa ku gaartay 1 month TikTok dhexdiisa intay gaarin heesta markaan sameeyay oo markii ugu horeysay heestas inaan sameeyo ka bacdi waxaan guud qaadayba inta ku xigtaysay inaan sameysto dadka isla soo qaadnay heesta inta wixii ka dambeeyayna aan isla karino ninba intiisa u karsado su'aasha hadday weydiinaysa anoo ku soo dhexdaraya waana ku qasbantahay way soo gaartay waxaa jirtay walaalkay wiil la yiraahdo Wisbi horta Soomaalidu waxa u sheegaya markii ay noqoto ishaynta social media dhexdeeda dabcan markii la isqabsado qof kasta sidoo uu arkayo inuu isdifaaco ayuu sameeynaya laakiin taa markii laga soo tago ana teeda markaan ka hadlo inta badan wax gudaha aan ku sii heesto ama cuqdadlow ah ama qofka hadduu wada iga hor yimaadaan salaami waayay malihi marka laga soo tago qof adiga sidaada kale dana kale adiga gaar kuule oo ku nacab oo sheekada dheer markii laga soo tago ismili aan markii la iska qabsado in dadka aan qalbiga wax ugu sii hayan gooni u naco boqol mar ay dhacday dad aan isqabsan inta wax lagu weydiiyay inaan dhaw legendary waay marka waxa dhacday walaalkay wiilkan hadda ay saysanay social media na la waday waxaan isku baran Nairobi before Nairobi aadin heshiisaan reaction ka bixin jiray ma xaqiri jirin walibana waxaan sameyn jiray waxyaabo qaar maano inta reaction ka bixinay fanaaniin maana taabtaa jiro macnaha wax markaas buuq ku fura hees waxa xasuustaa heshiis ka mid ahayd oo buuq furaysa maxay faad bunaanay iyo erayo aan la jeclaysaneyn iqaab muuqaal waxa xasuustaa xitaa inaa ka qalleeyay because anigu waxaan u arkayaa markaas haddii qalad weyn qod sameeyay inta reaction bixinayo aan toos ku iftiimiyo fanaana
horumarkiisa inaan ka hor istaagaan u arkayaa waayo qofkan wuu rucleynayaa wuu safar gareynayaa waddadiisa horumarku ku jiraa waxaan inta badan sameeyaa aniga positive reactionka qaabka u bixiya waa la wada yaqaanaa weli mayan dhicin qof inaad dhaho adi fanaan matiid mayan dhicin intaan kursigan fadhiyey marka wiilkaa wuxuu jeclaystay qaabkaa reaction kuga bixin jiray waa isbaranay den nairobi baa imaaday nairobi markaa imaaday waxaa mar kasta nagu dhex jiri jiray in the studio in the home nin la yidhaahdo cadnaa model iyo nin la dhaho deeq darajo haba u badnaado cadnaa model niyadda hees la yidhaahdo ayaa habeenka ugu horeysaa midba mise habeen ku xigteedana uu imaaday habeen ku xigta uu imaaday ha aan guriga cadnaa model ku kulannay aan face to face ku aragnay sheekaysanay isla caawaba heesaan karinaa dhahay aniga safar ay sugaya muqdisho u socdaa waa baxooyaa haye waayahay hees la yidhaahdo niyadda ayaan sameynay heesas niyadda markii aan sameynaynay waxaa fadhiya cadnaa model kooraska anaa u bilaabay kooraska markaa u bilaabay inta ku xigta erayada ninba wuxuu keenuu ku darayey kuwiga haba u badnaadaane xitaa markuu ninkan iga xanaajiyey oo ninkii jafaya ahba soo arkay den waxaa dhacday habeenkii heesta inaan meesha ku karino stuudiyaha tagno soo duubno heesta waxaan ku heshiinay inaan muuqaal u sameyno intaa taa la gaarin ayuu wuxuu yidhi hees kalaa rabnaa labadeen inaan sameyno oo ani a soo gashanayo tan maadaama aad soo gashanaysa waayahay baa dhahay baraadar subaxdii baan balamiyey stuudiyaha ku balamiyey habeenkii anu guriga wada joognay oo xilli dambe laisla gaaray ayuu wuxuu yidhi waa seexanaa subaxdii maxaa la yidhahdaaye stuudiyaha waqti fiicanaya maana si maaragtay xitaa wax kasii badan aa u karin waayahay baa dhahay anigoo sideedii u dhafarsan ilaan nin baan ballan la leeyahay stuudiyahan waqti ka qabsaday waan soo kacay cadnaan baan kiciyey gaarigaan soo qaadanay ninka taleefku naga qabo waay waa wacnay taleefku qabo waay kadib stuudiyaan tegey stuudiyii markaa joogaa wacay stuudiyihii cadnaan model iga tegey intaa stuudiyaha joogay ayuu dib haddana igu soo noqday kadibba haddana sii wacnay ninkan goor dambe wuxuu imaaday 3 meelaha ay ku dhowdahay galabnimo markuu imaaday anuuba aad ii haystaaba meesha waxaa fadhiyay deeq darajo anuu aad ii haystaa wuxuu yidhi waxaastaa wuxuu dhahay gabar baa timid hadda ka hor isaga muusiga la samaysay mulki beebi la dhahayo walaashay halkaan ka salaamayo fanaanad ah oo caan oo la wada yaqaano waliba nairobi dhankaa aad caan uga ah very famous ah gabadha ayaa iyadana stuudiyaha maantaas ku aragnay oo heesta labadooda ay wada qaadeen hadda ka hor reaction ay kasoo bixiyo itaqaani hay CK warkiisii maadaama imaadada dhaad aad joogtid kaashkid ana heesaa ka samaystaa adigana hees hadaa wada sameeyno oo soo aragtaa dib ma lahaan dhaab jag waay hodiyaar waay maadaama ninkaas sugay uu imaan waayay gabadhana meesha hees ku samaysanaysay isla markii waxbaa meesha ku karkariyey waxaan diyaariyey gabadhaa waxaan diyaar u noqon inaan wax sii bilowno ninkaan 3 galabnimo markuu imaaday gabadha markuu arkay gooni ila baxay wuxuu dhahay brother qof weyn ma tidmiya maxaa dhacay dawaa balamisu ugu dhahay hool kalena waa ku jirtaa deeq darajo taagnaa wuxuu yiri hadda waa balamisu hool kalena madaxa la gashay brother waxaa dhahay ani adi meeqa saac balanay subaxda 2 saac meelahaas aan balanay 3 saac 9 saac galabnimo inta dhan waa ku soo wacayaan dhahay hadda adi wax yirnaanayo 3 galabnimo markii la gaaray waa quustay qofkaana imaaday aan wax iskala sii waday haddana markaa dhammaan waxa wada karkarnaan dhahay maxaa adu aha in aan waqtigaada ku imaadida dhahay ani ma ahan show wiilkii iyo gabadha waa isaay anu ma ogi okay sheeko ka horeysa jirta sheeko iga horeysa jirta ani ma ogi markaa laakiin gabadha inta stuudiyaha aad joognay aan wax wada sameeynay aan wax wada karinaynay hal mar ninkaa magaciisa uguma soo qaadin xitaa waa u sheegay usbiya balansannahay shalay hees aan sameynay haddana hees aan sameyn rabnaa iguma dhihin waa isaynaa ninkaasi waa kan waay iguma oran isaga le ninkaan gadaal dambe ka fahmino wuxuu ugu kacsan yahay walaalow waxaan dhahay qoftaan haddaa isheesaan gabadhaan afaaraad ma ugu soo hadal qaadan adaa hadda kaa maqlaayaaye isdirjiyaa dhahay brother caadi iska dhig midda kale timeka aan wada badan ani aday balanta galnay adaa taleefonkaaga dansaday haddana waxaa igu jawaabayay waa dhafarsanaa waa saxday waa kula dhafarsanaa waqtigii aan ku imaaday brother ina aan iqabsitid maahaan dhahay yarkii taas markay dhacday aniga hooleeyii kale sii watay muuqaalkii haddana timid muuqaalkii markay timid ayaan waxaan xasuustaa wuxuuna balamiyey subax anna maalintaas wixii ka dambeeyey waa soo noqonaya xitaa showidii muqdisho iyo soomaaliya waa soo dhammaystay waa soo noqonaya markaa soo laabanaya wuxuu dhahay niyo hay waxaa samaysaa heesta inaan muuqaal u sameyno allah kugu duwo hay diyaar waayaan dhahay beri gabadhii heesta aan la sameynaya mulki ayaa muuqaal wada sameyn rabnaaye
deeq darajaana duubaye galbihii wixii ka dambeeya subaxdii oo dhan imaaw waa duubeena muuqaalka waayuu dhahay deeq darajaa labada muuqaal qabanayaan dhahay subaxdii waa seexday ninkaan aniga deeq darajaan ku asbaxay waa soo kiciyey waa keenay ninkaan subaxdii markuu seexday deeq daraji iyo candaa model iyo dana kale waxa iska qabsanay galabtii waa dan soo naaxay waa the second time wuu isoo wacay wuxuu u dhahay duqa maxaa adi filinkan war adi waxaa dhahay walaalow see aad igu qabsanaya dhahday adi laba qof maa kala tahay xalay qof ma aad maanta qof maa tahay waa markii labaadaa dhahay inta waqti aan balanno aa iska soo kicaysid saddexda afarta aanay qabsanaysid maya waa u jeedaa qofa warniyow adi waxaa dhahay horta sidaadaba aa wax kuu sheegay walaalow ani gabadha aa ka hadlaysid waxaanaa wada karinoonaa hal mar magacaaga xitaa iguma soo qaadin waa u jeedaa iyo qofkaana saani inta ka baxdid waqtiga aan wada balanna ma igu aragtay aniga inaa heli weysid miskoolkaaga teleefonkayga maku aragtay adaa qaldanaa ku dhahay brother hurdada haddii adiga horumarkaaga ama wax markaas aa ku haminaysa ama aa rabtid ee dhabkaaga tahay waa ku arki laayaan dhahay brother inaa eedaysid maaha sidii aan ku kala aamusnay waa soo baxay bartiyaa wiilka isku daynay yurubaa imaaday waxaa dhacday allahu mustacaan inay isoo gaartay ninkan uu rabo inuu maaragtay hees ugu soo caayo dadku hadday maqleen mar hore inuu sheeko wado isoo gaartay aniga sideedaba qofka afkiisa wuxuu igu dhahan ku xukmiyaa wax la ii sheegay ma qaato cuqdad uma qaadin asigii kin araasha hees soo wada qaaday waa soo fadhiistay anoo og waxa meelaha uu ka leeyahay ayaan reaction ka bixiyey mana xaasidin heestoodana wax kama sheegin si fiicana uga hadlay intaa waxaa ka dambeeyey inuu isaga isoo wacay codkiisana waa ii duuban yahay weli social media ma soo dhigin waxaa ila joogay wiil aan saaxiibanahay eji la yiraahdo ninkan markuu isoo wacay isla markiiba ma jeclaysan qaabkiisa taleefonkaan duubtay taa waxa igu kalifayana waxay tahay horaa waxaa ii soo maray rag aa isqabsan jirnay oo gadaal dambe weji kala yeeshay anigii oo la kaftamaayo la quslaya waxaa dhahay saaxiibow adiga intaas hees adoo arkaya kooriskayga maxaa ka rabtaa dha inaa heesta soo wadana adoo og anoo la kaftamaayo asagana asoo quslaya wuxuu ugu yidhi adiga waxaa iska dhaaf waxaan business waaye stuudiyaa ku noqo wahaya codkiisa stuudiyaa ku noqo annaga waxaa waaye waxaan waa diyaarsanay waa ku kaasaaniyo bas og saas haddaad aad go'aanstaa dhahay no problem brother idinkana wixiina soo gashta anna waa soo gashanaan dhahay heesta waxaan arkayay marka hadda rag isaga ka soo horeeya weli ma maqashay yaanyaley ma ogolaato rag waxaa jiro ka soo horeeya oo durbababa ummadda u soo shaaciyey ee yidhi allahu mustacaan ninkan wuxuu ku haystaa hees ay wada kariyeen oo la dhaho wareer heestaas qaabkay ku timid aan kuu sheegayaa wisbiina waddanka lagu karinayo muu joogin soomaaliya lagu kariyey kenyuu joogay heestaa habeenka la karinaya waxaa fadhiyey aniga kin arash seerabtaa xamaada production abalinga annaa model deeq darajo subaxdiina waxaa u socday baydhabo oo aan show ku lahaa kin arash iyo aniga iyo tiimka safarkii igula jiraba gurigaasaa nimid muusiga maadaama xilli dambe la sameynayey si boorsooyinkeena hotelka diyaara saa dhafarka ugu baxno annagoo meesha joogna ayaa aniga kin arash seerabtaa wuxuu yidhi energy ahayaa maa wax samaysiin annagoo wax markaa rabno inaan sameyno ninkii sharma boy ahaa noo yimid sharma boy wuu soo galay waa isalaanay meeshii aan ku sheekeenay in wax la karinayo arkay horuu ka bilaabo wuu soo galay wuxuu ku baraawiyey beedka wuxuu ku baraawistay bes waa uu qosalle wax falaya ku jiray kin arash wuxuu ku baraaweystay anaa soo galay markaa soo galay waddadaad igu tuurta wareer oo koorska ah aan keenay xamaadaa soo booday intaas waa ku haystaa u dhahay intaas waa ku haystaa markuu yidhi seerabtaa hoos fadhiyey waa fiiriyey oo inuu noo garaaco baasha ahayd waa ku haystaa uu yidhi wuu garaacay intaas waddadaad igu tuurta wareer koorska ah wuu garaacay intaa markii aan sameynay ayaan waxaan kusii darsaday in kaloo raab ah intii markaa kusii darsaday sharma boy asagana faasuu samaystay kin arash asagana faasuu samaystay labadii faas markay samaysteen oo duubista la bilaabi lahaa saacadda 6 subaxnimo inuu gaartay waxay noqotay anagana safar u soconay inaan baxno
sharma boyna uu xanuunsanaa buu ii sheegay isagana uu haraayey jawigii saasuu ahaa sidii aan ku baxnay cabdixaafidow marka waxaa dhacday in habeenka lakiin araash iyo zola iyo aniga isay rabtaa inaan isqabanno habeenkaa waxaa dhacday isay rabtaa inuu yiri aniga kooraska waa ku haystaa aad u fiican yahay habeenkaa samaynayseen kinzola rabaa inaan la geshin oo idinla galo waa yahay sidii baan wax kusoo sameynay kinzola isagana uu meesha wax kusoo samaystay uu nagula galay heestii markaan soo deennay oo janaalkii laga soo daayey cod ahaan ayaa waxaa dhacday in commentiga aan ku ogaado 10 daqiiqo ugu horeysaba in heesta hal dhigna music uu joogo hal dhigna cod kaliya uu joogo ay wax ka qaldan tahay sababta ku celiyay because heesta marka la sameeyo inta badan dhagaal lagu dhageystaa maan sameeyay waa degdegeynay waxaa dhacday marka in iyadana ay suurtagali weyso inaan ku celino because maalinta ku xigta aan waa safraayay oo waa soo baxayay iyadana meeshaas ay ku suurtagali weyso ani iyo kinzola iyo arash aan studiyiisa producerna ah heesaa noo tumo studiyiisana aan ka shaqaysano waxaa dhacday inuu yiri waaba ka helayba anaa kula gelaya sidii uu ula galay kooraskii hore anigaa u sameeyey unbaa watay erayada kalena kulli waxay ahayn kuwo cusub xitaa arash iyo zola erayadii aan la galay xitaa ma ahayn waa bedelay barti ayaa waxaa dhacday iyagana inay soo daayaan aniga aan soo daayo aniga haddii xumaan aan rabo kooraska qaabkaan u qaaday oo laxankeygu ahaa unbuu isbii u qaadayey waan ku qabsan karay melody copyright wax la dhaho laakiin totaliba tiisa ayaan u raacayo annagana waa soo qaadaynaa waxaan business waay markuu yiri let's go adha brother no problem meel ma soo fariisan waa isaynaa ninkaa ma oran waxbana ma dhihin mar kalaa waxaa isoo gaartay oo weliba tan caddeen ee la socotay ninkaan inuu ani hees caay ii soo qaadi rabaaba adi kolley wax adi ka dhex muuqato waxuu ani ugu caynayo uu igu dareensiinayo then waa u aamusay saa markaa maqlay shib baan ka eri isaga ma raadin qoraal uma qorin waxba ma dhihin waxaa dhacday hees uu soo saaray inaa ka aamuso heestaas uu soo saarayey tan kale aad dabka u saarnayd uu diyaarinaya waxaas dhan waa la socday thenna markii saa aan sameeyey oo heestiisa aan ka aamusay ninkaana jawigii heestaan kale uu diyaarinayo uu rabo ayadoo coda inuu soo fasaxo haddana uu dib u celinayo uu joojinayo uu leeyahay muuqaalaan sameynaa aan jawigiisa ka warhaayo waxaa dhacday intaa kadib maaban maxaa la yidhahdaaye iisheeg maxaa la yidhahdaa dib dambe waxba iskumaan qabanin oo islama hadlin wax iskuma soo qorin waxba isma dhihin habeenkaa aa kuu sheegayo oo jawigiisa aa ogaanayo heesta uu soo saarayna maalimihii ku xigay aa ka aamusaayo instagramka waxaa uu soo qoray markii ck hees aa leedahay uu ka aamuso saanaa kugu dhacayso waana runo ninkaan hees dhan uu soo qaaday oo muuqaal usoo sameeyey waxaa ku dhacday 2 days 16 meelaha inuu dhaafi waayo wax kalena erayga uma dhehaynin oo kuma tuxsanaynin kumana xumeynaynin waxaan u dhahayey aniga oo isaga waraajinaya oo heestuu soo saaray si fiican uga hadlaaya oo u qiraya oo dhahaya ninkaan banaankiisu ku dhacay in dhinaca kale ninkaan hees caayo ii soo wado waa gartay laakiin cumarow aan kaa dhex gala halkaas dadku waxay oran karaan haddii saa sheegtay oo hees caayo kuu soo qoray tiisii horena aad comment fiican ka bixisay meeshaad instagramka messageka soo dhigeysay ma ka fiicnayd ma kula tahay inaad isaga la hadasho dhahdeed warniyow maxaan isku haysanaa 2 nin oo dhalinyaraan nahay saaxiibo ah isku music fanaaniin isla ah niyow aan kala cayshno ciisa bidiin muusa bidiin adna halkaan ka baxna halkaan ka baxo laakiin publigaada waxba usoo dhigin saas ma ku fiicnay mislaada aniga hadda xumaan u diyaar garoobo adiga cabdixaafid ma celin kartid sax waay marka aniga arrin waxay ahayd aan la socdo oo weliba uusan keligiis ku ahayn dad la wadaan oo la rabo in jawigaas la sameeyo diyaarna loogu ahaa waa la socday weliba tan hadda uu soo saar waa isla iyadu inay wax ka soo bedeleen aniga mid bay ii noqon lahayd hadduu keligii isagoo magac fanaan wato anoo youtubera uu aniga isoo karbaashi lahaa erayo isaga samaystan igu karbaashi lahaa sida aniga jawaabteeda keligii aan erayada iyo laxanka soo samaystay waxbay ahaan lahayd heesta marka waxaa la soo samaystay erayada ku dhowaad 3 nin ninku ma dalbu u heesayay mise youtuber waaba qoslaba descriptionka markaa ka arkay in heesta ay niman fanaaniin oo legendary ku jiraan
nin donibil la yiraahdo ku jira inta aan ka salaamayo inaad roobiyahada qadar Allah ma sha facala wali waxa waa aniga fanaakayga tahay waa ku wataa laakiin anigu waxaan ku faraxsanahay anoo youtuber ah nin fanaan 10 sano fanka bursanayay raba inuu ikarbaasho inuu intu u tago laba nin ee kale heesta loo kariyo fiiri erayada kaliya laga ma caawin hadduu muuqaalka markuu arkay tiri doonin descriptionka xataa laxanka laga caawiyay waxa kugu sii daran